hooyo waxbarashadu waa noloshaada mustaqbalkeeda waana midka gacantaada ku jira cid kale kuma hayso ku dadaal waxbarashadaada ku dadaal imtixaankaaga imtixaanku wuxuu leeyahay cabsi gaara inaanay baqanin waayo ilmo yar oo dugsiga hoose dhexe soo dhiganaya standard 8kii fadhiisanaya ama dugsiga sare ee 12 sano kadib imtixaanka natiijada ah qalqal haduu ku galo meeshaas waxa ka imaanayo inaad ilowdo wax badan oo maskaxdaad ku haysay sidiisaba imtixaan marka laga hadlayo waxa waaye howl muddo la soo waday qiimeynteeda waa culays kale maaha adduunka wax badan ayaa la isku dayay sidii imtixaan magac kale loogu heli lahaa maadaama uu cid walba ay u aragto kelmad magac laga naxayo laakiin sidiisaba imtixaan waa howl muddo soo socotay oo waxbarasho ardayda ay soo wadeen cabir lagu cabirayo wax ka weyn inta maaha ardaduna ay si fiican imtixaanka u galaan kalsooni ay ku galaan niyad-sami ay ku galaan kuna tala galaan inay ka gudbaan marxaladaas iyada ah una gudbaan marxaladii ka sareysay oo dugsiga sare ahaa inay u gudbaan waxaan in ka rabnaa in aad badisiin dadaalka iyo waxbarashada man jadda wajada ruuxi dadaal ugu hela waxa la in ka rabaa dadaalkaasuna waxa waaye in aad waqtiga intaad hudaysaan maahina inta kala tood aad ku jirtaan inaad wax baranaysaan iyo inaad muraajaca sameeynaysan waalidiinta marka waxaan ka rabnaa xilliga imtixaanka marka hore inay ilmaha dhiirigeliyaan oo caruurtooda ay u muujiyaan inay miiska la fadhiistaan la xisaabtamaan waxay baranayeen iskuulaadkana tagaan xilliga imtixaanka inay waalidiinta la socdaan caruurtooda ku wacyigeliyaan aad dhiirigelisid moralka koowaad ama maaragtay waxbarashadu waxay ka bilaabataa guriga al-umma madrasa la dhahay hooyadu waa macalinka gurigana hadduu xumaado caruurtu mustaqbal ma yeelanayaan waxaanu leenahay arda fiican haddii la arko waxaa dhalay aabba fiican iyo hooyo fiican saa daraadeeda aabbo kasta iyo hooyo kasta waxaa laga rabaa in ay noqdaan waalidka kuwa ugu fiican arda kastana waxaa laga rabaa inaan ceebtu hooyadiisa aabiis aynu ku dhicino oo noqdo soo kaalinta koowaad u galo inuu noqdo magaca uu soo hooyadiisa aabihiisa ardaygan waxaa dhalay aabba fiican waxaa dhalay hooyo fiican oo ka warqabaan waxbarashadiisa jidka markuu sii socdo iyo markuu ka soo socdo markuu iskoolka joogo markuu guriga joogaba hooyo iyo aabba inay ka warqabaan ay dhowraan waa hooskii ay biri harsalahaayeen sidaas ayaan waalidkana kula talinaynaa